Hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد موقع عصب إيه جلال كنا مو فامي طبعا ما أنت مسدو قصوين كرابرز كإيه وليبا قصوين إد كلا خصيصة ما أنت قصة دني أنا دين سيدا وحاي خصيصة أضيقني إذن هار فرديا yes ولقى أنت يوتيوب كسر جري كمان شاكين وح أنا يقول صعبصن ويجران قصوين بدنا أهدوا الله يا بدنا نيجي صاب مرة يقول داعي حتى ما أنت واحد مقال كان إذن كله ذاك دونا مت كم هذا قصوين كي يقول الله يا بكبرنا يعني جاي صاب مرة وعرجيني أين تكيل الدوتان يمكن يعطينا مقال كاينو كذا قلا قصدنا وقتيجي دعيسي وحن كجري دكسي جدها وقتيجا سي سوشيال ميديا سومالي دحدا aad ugu maanu badnayn oo siday haatan ugu jiraan WhatsApp iyo Instagram iyo Snapchat iyo Facebook iyo ugumaana jirin kastoo de Facebook waxaan iska jireen oo waqtigaasi dadka social media ku jira waxa aan ka ahaado ku aad u isticmaali jireen program loo oran jiray Nimbus iyo Skype iyo adigu jireen qaar badan balse de siday haatan Soomaalidu u soo wada galeen baraha bulshada ugumaana jirin waqtigaasi waxa aan ahaa baqtiya nasiib mid xariifa telefoon yar oo Nokia soo iibsan shirkadu Texim card bu soo furan deetana habeenkii lambar random ah oo la garanayn baa la iska gargaraacaya did hadii uu ku dhado hello waa lagu damin mid kala lagu celin did hadii inaan ku tiraahdo ha istaahil maxaa kugu dhacay maxaad iga qaban weyday xalay oo dhammaan ku soo garaacay maxaa kugu dhacay wala istaahil matid miya sorry lambarkaaga soo qaldamo de bilaadan baan leeyahay waa la qaldami karaa marka sorry هاي ولا الفيري تمر هدي أن سوق الدمي أذكر هذا جبادة سيداسي وعدك معان لإيه دهبجا جد جيجي بوان كاحلة بالكور هدي إنه إيش صحنا ديلوه هني بيا شيء إنه عاصية أي سعون جري حتى واحد جري ويل أن صاحبي يسكت وهين أو سيداسي وكله gabadha isku barteen baqtiya nasiib gabadhan aad ayuu jeclaa balse waligiin ma aanu arag gabadhan telefoonka uma ka wada sheekaystaan gabadhaasi waqti waliba waa iga sheekayn jiray waa gabadh cod macaan aad ii jecel xalay ilaa labadii ayaan wada hadlaynay xataa prepaid bay ugu soo shubtay niyo quruxdeedana ilaahay baa yaab ku keenay ودي صاحب هذينا لبا قبل ما نرجو جيدا سيرك قراتين قروح بدنتاي مين عد كذا كجرانيا واي قروح بدنتاي هذه قبل عاسي أسوقهم ولقي أرك أيو جعلها هذا بقى واحد عادي هبين هذا كمذا أيا واحد تجي جودي واحد كل الدجنين لبا حافظ هذا حاجة يرك على دروكسن مركز يان ولا ساعة ويسيمون حاجة وقت ولا ساعة قطع يان تجي واحد فريسنا عتبة جودي أنا جاي إنما كلا أهدو بدن هل كيبن وقت سجى قاعدين إنه كل شيء كيسنني سيدا إنه وده شيء كيسنني وده قصقص لني أيا ساعة دي واحد نلقى دي سيدتي أو سجالكي أيكوسي دواتيبا هذا إنه sidaas wada fadhinay ayaad ninkii hal mar waxa telefoonkiisii soo wacay gabadhii saaxiibtii ahayd ee aad ka ugu faanin jiray ninkii hal mar unbu naga dhaxboodan waxa ka laaboon meel yar oo sekada ayuu looq yar telefoonkii la fadhistay wax yar kadib ninkii oo cararayo baa noo yimido gacantoon baan iga soo jiiday soo kacniyoon arrin baan ku hayay yaa waa maxay arrintan farxad leh maanta isiday waxa uu yiri waxaan ku sidaa arrin farxad leh anigana taniya adigana farxad ku noqonaysa okay sooda waxa uu yiri xabadii aynu wada sheekaysananay ayaa caawa waxa iga codsatay inaynu kulanno de waasax waa war wanaagsan xabadii inaad sidaas oo dhan igu bumbuunisay bal caawa soo arag oo akhbaar fiican nooga keen waxa uu yiri waa si wanaagsan laakiin niyoon dib kale ayaa jira dibka jira ayaa waxa uu yahay gabadhu waxay soo kaxaysanaysaa gabadh kale oo saaxiibteed waxaan kaaga baahanahay gabadha kale saaxiibteed inaad adiga ku baxdid oo adiga qabatid oo adiga habaysid yaa aniga iyo shookaansi waqtigaasina daahan waan yaraa waligayna gabadh gidaar lamaan istaagin shookansina warkiisa daayo waligayba gabadh xabiibti maan odhan waxaan idhi waariyaahay kadiska intaa lag muxuu yahay arrintan maanta ma noo sii sheegtid waanu sii diyaar garoobi lahaa waanu fikiri lahaa waxaan ka odhan lahaa baan kasii fikiri lahaa waanu labisan lahaa de xoogay de waxaan iska dhigi lahaa wax caadi ah laakiin waqti xaadirkan dacaskeen xaafadaha ku dhex joogaan xidhanahay garankaa yara cawlana waanu xidhanahay xageed gabadh madaxa nagu gelinaysa waxa uu yiri waar joojiniyo hon markii hore isku maanan ogeyn gabadh soo kaxaysanayso laakiin imikoon bay sheegtay imikana dhib ma laha kaali guriga soo galo kabahayga iyo dharkayga xidho waa caadi markaan arkay ninkii saaxiibkay ahaa oo arrintan aad ugu xamaasadaysan waxaan idhi okay let's do it gurigii baan galay dharkiisii baan soo kala daadaadanay waxbaan kala baxay kabiisii baan xidhay waan yara foofool dhaqday cadar yar oo guriga u yaalan xoogay isku yara daadaadiyey waynu soo baxnay deetana gabadhii ayuu la hadlay waxaanu ku wada ballameen inaynu meel ku wada kulanno haddaba meeshii markaynu gaadhnay laba gabdhood oo waaweyn siiba midi ay geedkaa leeg tahay dheeri waxay ka qabto waxaan bal teleefonkeedii garaaca hubi inay ayagii yihiin waxaan niyadda ka lahaa ilaahow kuwan ha ka dhigin balse nasiib darro ayagii ayay noqdeen xabadii yara gaabnaydan anigoo isku waday waxay noqotay DC anigana waxay igu soo hagaagtay xabad dheer oo haddii aan kor u fiiriyo qoortii ku xanuunayso waxaan idhi khalaas maanta waad ku jirtaa naag edada leeg baad farahaas kula geli doontaa waanu isgeejino reer magaalaan iska dhigno
gabadhii ayaynu la sheekaysanay wax yar kadibna xabadiisii ayuu dhinac ula beedhay anna xabadaydii dheerayd ayaan dhinac ula beedhay waxaa dhacday wax yar kadib inaynu wadadii ku dhacnay anigii gabadhii labadii kalena ay xagga dambe naga soo daba socdeen waxaan islahaa xabadani kaa weyn way ku caalaanan doontaa waxay ka oran doontaa adigoo cunuga oo ciyaala maxaa naagaha kaa waaweyn ku daba dhigay bay ku odhan doontaa oo buuri bay kugu tufi doontaa baa islahaa balse gabadhii waxay bilowdoon magacaa wiil yaroo qurux badan baa tee waa shidan tee yaa aniga miyeeleeda waa shidan tahay waraa waa kaa heshay khataraa tahay be khalaas intii kadib gabadhii waynu isfahanoo si fiican ayaanu wada sheekaysanaynay laakiin dhibta jirtay ayaa waxay ahayd gabadhu tilaabaday qaadaysa waxaan isirmalaha shalay baariyaha ka soo gashay aniguna waan garaboodaa waxaan israayeen kaa dheeraynin waxaaba noqonay sidii laba qof oo tartan ku jira xaggeen u soconnaa ilaahay baa og sidaan u soconnay xaafadii baan ka dhex baxnay saacaddu wakhtigaasi waxay ahayd cabbaara 9kii waxaanay ahayd wakhti gudcur ah oo madow ah anigii gabadhii sidaynu u wada soconnay baa hal mar waxaynu gunta u gallay low dhan oo ciidama oo ciyaalka xaafadda dabcan dhacdooyinka xaafadaha ka dhacana horanu sii ogaa niyadda ayaan quloollaa ka akhristay ilaah waa nagu soo kicinin balse ilaahay baa ku dhaartay waxa soo kacay wax alla wixii gidaarkii fadhiyey oo wada sitay silsilada ula miraamiraya xaggii dambaan fiiriyey anigoo rajo ka qabay inuu saaxiibkay soo gaadhay balse saaxiibka iyo xabadiisa mar horaan meel fog kaga nimid waxaana sidhi haddii aad iminka kala jeedisid ood waxgelisidood ka baxsatid xabadan yar ayaa u soo hadhaysoo diirka ayay ka siibayaan mi waraa raganimo muuji gabadha ku duldhimo waqtigaasi waxaan badsadoon aad u daawan jiray aflaanta actionka ah Jackie Chan iyo sidoo kale aflaanta hindiga ah oo meel xuniga tuuray welibana maalmahaasi waxaan daawaday film hindi ah oo la odhan jiray sheeraha oo atoore ka ahaa nin u naqaanay gaal mustur anigu aqaan beenboode waa nin mar waliba u dagaalamayo boodbood badan 20 nin baa soo weerarayso hal mar buu hid la wada dhacaya gidigoodiba dhulka ayuu seexinaya maxaa dhacday khatar baan iska dhigo xabadeydii yareed baan idhi adigu xaggaasi istaag raggan annaga wada xisaabtamayne meeshu waa meel madow hal qofna si saafay uma arkayo waxaa hal mar igu soo booday mid ka mid a inamadii oo sitay silsiladii ayay igu fasaxay silsiladii intaan soo qabtay ayaan bahal teestaa ka geliyey jiib waxaan isleeyahay ku samaysa ragga balse ku dhufashadii ninkii ku dhuftay headka waxa ay xigay silsilado iyo dheengado dhinac walba iga socda iyo ayadii durba lagu helay isaga ka hoos qaado waxaan sarkanigoo dhulka yaal yaa waraa wixii daawan jirtay khatartii aaway gabadhii baan sidaasi wayaro jaleecay waxaan arkay gabadhii oo shalmadii iyo diricii inta xaydatay 5 gelisoo durba sakada kale kasii laabaysa yaa deena deertaas kuma nugeyne malaha waxba ka rooneed anigoo bilowgii baxsada raggani aad iyo tiro badnaayeen 10 ayay ku dhaafayeen nimankii oo jugtaygu wada ayaa waxaan maqlay codod aan garanayo oo ragga ku dhex jira welibana mid kamid ah si fiican ayuu garanayay ninkii baan magaciisa ku dhawaaqay inuu dhig wariyaa waa anigi waa Mukhtaar raggii ayaa markii dareemeen inaan gartay faraha iga qaaday inamadiina badankoodii waxayba noqdeen kuwa aan toos u garanayo iyo kuwa aan muuqaal ahaan garanayo balse si fiican isu aqoon adigu inankii ayaa igu yiri niyo raali noqo inaad adiga tahay kuma garanayn oo waxaan meesha u fadhiisanay inaan soloolo nimankii naagaha gidaarada isla taagtaagan ee xaafadaha kale naga soo galay adigu inamadii dhammaantood si wada jira ayay raali geliyeen shafka ayay geliyeen oo adigu raali gelin buuxda ayay siiyeen balse raali gelin maxay ii tare waan buusbuusanahay dhinacan dheengidayga yaala dhigta hoosteeda way barasan tahay wejiga iska da adigu gurigii ayaan isaga laabtay anigoo xanaaqsan waxaan gurigii ugu tagay ninkii oo sariirta dul jiifo hayde xabiibti gurigii ma gaadheedahaya waraa xabiibtidu ha kuu dambaysay xageed ka dhacday wuxuu yidhi dee idinku xageed ka dhacdeen labadiiniba waad baxsateenuno sidii dad xoolo baadiya raadinayoon baad xuf nugu dhaafteene gabadhii horta ayada warkeedii ma hayo xataa lambaraan meynaan kala qoran habeen kale ayuu ninkii saaxiibkay ahaa igu yidhi gabadhii ayaa caawanay ballansane dee ina mari gabadh kalena oo la socotaa waxaa laga yaabaa inay gabadhii tahay waxaan idhi waariyaahe waar labadoodaba orodoo adigu isku darso ila dhaaf bilaa caleeg weli jugtii hore igu taalo jug kale itaalo ma haya maalintaasi waxay ahayd maalintii nolosheedii ugu horreysay aan isku dayo shukaansi iyo inaan gabadh la baxo waxaan iga raacday dhacdadaasi cajaa'ib ka badan haddaba saaxiibayaal gabi ahaanba muuqaalkeena maanta halkaasi ayaan kusoo afmeerayaa balse adiga nin aan ku weydiiye haddii aad booskayga ku jiri lahayd gabadhna aad la socon lahayd arki lahaydna koox ka badan 10 qof oo gacmaha ku wada sidata silsilado iyo dheengado diyaarna waa inay adiga ku soloolaan gabadhaasi ma banaankaad kaga baxsan lahayd mise sidayda oo kale ayaad naftaada u haligi lahayd adoo si daacadnimo u hadlaya dhinaca hoose oo commentigan wala wadaag gabi ahaanna muuqaalkeena maanta halkaasi ayuu ku egyahay waad ku mahadsantiin daawashada qisooyin kale oo cajaa'ib badan oo igu dhacay way jiraan ma aqaan inaad qisooyinka ka heshaan personal historieska sidoo kale muuqaaladii xiisaha badnaad iga barateenna wadada ayay ku soo jiraan oo haddeed YouTuber rasmi ah ayaa noqday insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan muuqaalada joogteeyo imkii haatan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh